gudoomiyaha gobolka saaxil duqa degmada Berbera iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee heer gobol ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Sheekh iyo taageerayaal badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada. xafladan oo ka qabsantay hotel Masha Allah ee magaalada Sheekh ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta degmada Sheekh Salaadiin iyo maamulka xisbiga kulmiye ee heer degmo. ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay maayirka degmada Sheekh Ibrahim Cabdilaahi Cabsiye, gudoomiyihii hore ee xisbiga kulmiye ee degmada Sheekh Cabdu Xuseen Jaamac iyo Axmed Maxamed Caynaasho oo intii ay munaasabadani socotay iyaguna halkaasi xilka kula kala wareegay. mar haddii ururkii dalsan uu hadhay otomaatikali wuxuu nagula shaqaynayey xisbiga kulmiye xildhibaanadii nagula shaqaynayey ayuu ka mid ahaa. waxaa se la gartay mar haddii uu marka hore urur gooniye ka soo baxay in si sharaf leh iyo munaasabad uu ugu soo wareego xisbiga kulmiye. mahad celinayaa saaxiibkay cabdo xuseen jaamac oo igu wareejiyey si sharaf leh xilkii guddoomiyenimo si sharaf leh igu wareejiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cabdo. waxaan u baahannahay taageeradaadaan u baahannahay xildhibaan, waxaan u baahannahay taladaadaan u baahannahay awooddaadaan u baahannahay. aad iyo aad baan isugu soo dhaweynaa xisbiga kulmiye. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey xildhibaan aadan calaf oo ka mid ah xildhibaanada loo sameeyey munaasabadan sida heerka sare loo soo agaasimay caaqil xasan shaqale iyo suldaan cabdi dhuucyare xogayaha dowladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariim Aadan Cadde. wuxuu noqday saan badan aynu qaadnay inaynu isla dheeg taagno xisbiga kulmiye. soo sidaa ma aha laga bilaabo maanta taageerayaasha halkan ila jooga iyo kuwa iga maqanba waxaan u sheegayaa inaynu isla dheeg taagayno xisbiga kulmiye soona saarayno Muuse Biixi Cabdi. inuu dadweynaha nahay wuxuun baa laynaga doonayaa xisbiga dimuqraadiyadiisii caddeeyey inaynu soo saarno inaynu xoog iyo xiriiro iyo xoolo iyo xaajo mid walba aynu dhexda xidhanno dhexda. waxay kaloo nimanka oramada la yidhaahdaan fardookhunno dirookhunno oramada ku maqan fardookhunno dirookhunno afkeer Soomaaligana waxa lagu dhamaa maamaada farda la isoo hayo maxaa la isugu faanay. degmada Sheekh waa degmo ballaaran oo gobolka Saaxil ka tirsan, waana degmooyinka la tirsanayo ee ay tirsanayso guusha xisbiga kulmiye iyo musharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. waxaan leeyahay haddii in uu gobolka degmada Sheekh laga rajaynay inay wax ka dhiman yihiin waxa kaliya oo inaga dhinaa aadan calas iyo taageerayaashiisii ku quusa quraanjo. gabagabadii waxaa iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed. waxaana ka mid ah hadalladoodii iyo bulshadiisu kala guurkii maaya kala gurasho weyn waxaa la kala saarayaa oo maanta iyo maalin walba ilaa inta codaynta aynu kala muujinaynaa wadaniga ah iyo wadaniga niqaabanee nagu dhex jira wadaniga niqaaban. labada gudoomiye ee halkan iskugu dhiibay xilka sida sharafta leh aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. aad baana dadweynaha reer Sheekh ugu mahadnaqayaa. waxaan u malaynayaa degmo ka horeynaysa gobolka Saaxil inayna jirin. soo sidaa ma aha. Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul, telefishinka caalamiga Soomaali Cable, magaalada Berbera.